bismillah alxamdulilah assalaamu calaykum asxaabta channelkayga ku xiran waa mar kale walaashiin saare channel ah ugu barateen muuqaalo aad idiin anfaco faa'iido leh maasha allah. maantan waxaa idiin wadaa muuqaalkaas xiisaha badan leh waa adduunyada iyo xaaladeeda siday isku badbedelayaan. waan rajeynayaa inaad ka wada heli doontaan oo ka faa'iidi doontaan. haddii aad nagu cusub tahay soo dhawo please subscribe. haddii aad horey inoola joogto muuqaalkana ku cajabiye like garee, asxaabtaada iyo eheladaada usii sheer garee. wixii fikradana xagga commentiga igu soo qoro, fikradihiina waa ii muhiim. waxaan rajeynayaa inaad si wacan ila socotaan axbaabteyda. haddana waxaa kusoo dhawaataan muuqaalkii oo inoo bilowdo maasha allah. ka faa'iidaysi wanaagsan. adduunyada xaaladaheeda waa ay isbedelaan. dadna iyagoo dhulka hoostiisa ku sugan ay hurdada noogu yimaadaan, dadna iyagoo dhulka dushiisa maraya ayaylan salaanta naga qaadayn. waxaa laga yaabaa inaad degan tahay qasri, noloshana ay cidhiiri kugu tahay. waxaa laga yaabaa inaad degan tahay god, ilaahay qalbigaagana uu waasiciyey. waxaa suurtagal ah inaad tahay qof cas, wejigaagana madow uu ka muuqdo. waxaa kaloo suurtagal ah inaad tahay qof madow, wejigaagana uu nuur ka ifayo. waxaa laga yaabaa inay walaalo kula dhasheen aadse keligaa nooshahay. waxaa kaloo laga yaabaa inayn walaalo kula dhalan, haddana hareerahaaga ay walaalo yihiin. waxaa laga yaabaa inaad aragtid dad hantiilayaal ahoo laaluush qaadanaya iyo fuqaro wax sadaqadaysanaysa. sidaa daraaddeed ayuu rabbi ugu magacaabay dunyaa tii hoosaysay ee uusan ugu magacaabin culyaa tii sarraysay. samafalkaaga iyo tacaamulkaaga wanaagsan lama halmaamayo, ee ha ka qoomamayn laxdo aad qof qalbigiisa farxad gelisay, xataa yuusanba ahaanin mid mutaystay. dadka wanaagsan marka quluubtooda la duro waxay ku hanjabaan cadgoosi. hase ahaatee jaaniska iyo fursadda markay soo marto damiirkoodaa ku qayliya alcafwu cinda almaqdira. cafinta ahaatay awoodda agteeda. mustaqbalkaaga hadda ha xukumin. nebiyada ari ayay raaceen, ummadana waa ay hoggaamiyeen. waxaad ku baaqi ahaanaysaa dayaca iyo murugada daa'iradeeda intayba salaada tahay midaan qorshahaaga ku jirin. salaada waxaa lala xiriiriyey liibaan. xaya cala asalaah, xaya cala alfalaax. sidee buu u liibaanayaa qof aan tukanin? xurriyad iyo ikhtiyaar baad u leedahay inaad nacdid qof ficilkii. hase ahaatee xurriyad uma lihid inaad qof sumcaddiisa xumaysid markaad nacdid. farajka sugsida adigoo la ballansan, xataa haba soo dibdhace. dibudhiciisa kama dhigna inuusan iimaanin, ee annagaa ah dad degdegsiyo dalbaya. waxaan suurtagal ahayn wax ilaahay kuu qoray in kayrkaaga u aado ee xasil. ruux xakiima ayay su'aaleen, yaad jeceshahay in badan saaxiibkaa ama walaalkaa? wuxuu ku jawaabay, walaalkay ayaan jecelahay markuu saaxiibkay yahay, saaxiibkay ayaan jecelahay markuu walaalkay yahay. oohintu ma ahaanin nafsadda markay geeriyooto, hase ahaatee oohintu waxay ahaatay toobadda markay tagto. ilaahay dembi dhaaf weydiiso oo u toobadkeen. waxaad tidhaahdaa, rabbiyow haddii uu jiro xaasid nacaya inuu i arko anigoo faraxsan, allow farxad sii, halmaamsiisa amarkayga. waxaan nahay dad imtixaan ku jira, ay suurtagal tahay laxdo walba waqtiga inuu dhammaado warqaddana laga qaado. haddaba warqaddaada tarkiisi oo iska daa warqadda kayrkaaga. asxaabteeda waxaan rajeynayaa inaad ka wada heli doontaan muuqaalkan insha allah. oo asxaabtiina iyo eheladiina aad usii sheer garayn doontaan. waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan. jazaakum allahu khayra. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.